kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeeni falanqeynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa ugu weyn Shiinaha oo la sheegay inuu Iran saldhig military oo baaxad ka sameysanayo iyo Mareykanka oo arintaasi ka dhiidiyay khatarta dunida ka soo kordhaysa ee dhinaca militariga oo badanaysa Shiinaha sidoo kale wuxuu gantaal cusub ku tijaabiyay badda iyadoo oo sidoo kalena isku birtumashada ay muuqato daawadayaasha qiimaha leh qodobadaas warbixinaha dheeraad ah idinka ayaa daawadayaal Pakistan waxay sheegtay inay qofashay markab ay leedahay Iran iyo dagaalkii Mareykanka iyo u dhaxeeyay Iran oo Pakistan ay u muuqatay inay soo gashay Liibiya waxa ay sheegtay in qaraxii ka dhacay Beirut mid ka daran oo ku soo socdo ayay yiraahdeen goobaha saliidda ee dalalkooda markaana ay jiraan dalal burburinaya hantida dalalka kale Carbeed digniintaas oo laga dhadhasan karo khatarta ay ku jiraan dekedaha Soomaaliya Kenya waa goob argagixiso iyo qafaarasho ka taagan tahay aysan tagin muwaadiniinta Mareykanka sidaasna wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa warbixin ku soo saartay qodobada kale daawadayaad ku maqli doontaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda badda Mediterranean-ka dagaal ayaa ka qarxi kara goor kastaba sidaasna midowga Yurub ayaa sheegaya iyadoo xasaradaha adduunku badan yahay shirkadda Fayfori ee iyaduna maamusha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya waxa laga cabanaya takoorid iyo dhibaato xooggan oo shaqaalaha Soomaalida ku hayso qodobadaas iyo kuwa kala daawada ay ku qula doontaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda dunida oo dhan waa 10kii bishii 8 waa 2020 waa maalmo Isniin oo markale barnaamijkeeni falanqeynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda daawadayaasha qiimaha ku bilaabay dalka Belarus ayaa doorashadiisa la isku khilaafay kadib markii madaxweynaha talada haystay dalkaasi uu sheegay inuu ku guuleystay markaasi saddexaad ama afraad talada dalkaasi magaalada caasimadda Minsk ayaa waxa ka dhacay mudaharaado dadku ay uga soo horjeedaan ku dhawaaqista TV-ga qaran ee sheegay in 80% codadkii la dhiibtay uu ku guuleystay madaxweynaha haatan talada haya ee dalkaasi Belarus oo asagu la sheegay in uu yahay nin ku shubashada aad u yaqaan Alexander Lukashenko ayaa la sheegay in dib loo doortay sida uu TV-gu ku dhawaaqay balse gabadha la tadsida daran oo la tartamaysay ayaa sheegtay in aysan asmacaynin waxayna ku sifaysay inay ogtahay in aqlabiyada dadka ugu badan iyadoo ay heshay iyadoo hadlaysay ayay sheegtay haweenadaasi in waxa halkaas ka soo baxay ay tahay khatar Isfeltana Tikhonovskaya waxa ay tiri waxaan u maleynayaa inaanan taageersanayn in 7% aad heshay leedahay waxa aan aaminsanahay waxay tiri indhahayga iyo wixii aan arkay taasina waxa weeye in aqlabiyadu anaga nala jirto ayay u sheegtay warfidiyaasha iyadoo xalay goor dambe kula hadashay magaalada caasimadda Minsk Alexander Lukashenko ayaa sheegay in uu guuleystay madaxweynahan ayaa talada haysta tan iyo sanadkii 1994 waxaana lagu tiriyaa inuu yahay taliyaha kaliya ee qaaradda Yurub ila hadeerta ka jira halka nagala socotaan daawadayaal wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo warbixino waaweyn ayaa inoo soo socda iyo waliba arrimo dhinaca diblomaasiyadda ee Liibiya wax shirkadda madaxa guud ee shirkadda maamusha saliidda waxa uu daha ka rogay arrin aad iyo aad la yaab leh madaxa guud ee shirkadda maamusha saliidda dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in wixii ka dhacay magaalada caasimadda oo ah dalka Lebanon ee Beirut ay bix noqonayso marka la eego ayuu yiri tabo ay ciyaarayaan dalal cadow ah oo ka dameekay qaraxyadaasi waana arrin la yaab leh dad badan oo khubaro ah ayaa waxay aaminsan yihiin in qaraxii ka dhacay magaalada Beirut iyo kii bishii Oktoobar ee 2017 ka dhacay Muqdisho labadaba aysan ahayn wax ay koox soo abaabuli karto gaar ahaan kooxo yaryar oo ama khibrada ay haystaan ama agabka ay ku dagaalameen ama saanada meesha saaran iyo qaraxyada kiimikooyinka iyo dhibaatada iyo khasaaraha burburka ay geysteen inkastoo aad moodo inay dunidu hiil iyo hoob dul dhigtay Lebanon isla markaana inaga Soomaali ahaan aan ciidisa inoo taageerin waagi dadkeenu laadeen haddana si kasta ay noqoto inagu inkastoo aan naga xumayn in ayaga la taageeray haddana meesha waxa ka soo baxday eray bixin cusub waxaana daraasad ay sameysay shirkadda dhinaca maamulka saliidda u qaabilsan dalkaasi ay sida fiinta uga qaylisay waxay ku sifaysay in meesha xigi doonta iyo burburka ugu badan ee la geysan doona ay kamid yihiin dekedaha dalka Liibiya iyo goobaha saliidda oo la qarxi doono si loo ciriyaamiyo dhaqaalaha dalkaasi dibna loogu celiyo in ay qaadato in dib looga soo kabto 10 sano oo dambe dalka Liibiya uu noqdo dal fashilmay madaxa guud ee shirkadaasi The Libyan National Oil Corporation la yiraahdo waxa uu sheegay in xogta ay hayaan ay tahay mid cajiiba wuxuu yiri waxaad qiyaastaa goobaha saliidda oo dhan waxa ku sugan ama maamula shirkado iyo wuxuu yiri ururo calooshood u shaqeystayaal oo dalasheeya ka socda Mustafa Sanala wuxuu intaas ku daray in ay og yihiin in aagaga saliidda laga soo saaro military ama maleeshiyaadkii militariga la geeyay ee Khalifa Haftar marshaalka la yiraahdo iyadoo laga amar qaadanayo ay dalashay halkaas calooshood shaqsiyaal ay geeyeen calooshood shaqsiyaashaas oo qarax baxsan ay geey karaan marka aan qiimeynta iyo wararka in helno dhan ayna eegno masiibadii ka dhacday Beirut dekedeeda waxay noqon doontaa bix ayuu yiri laakiin
burburka kale iyo baabaa kale ee kusoo socda Liibiya waxa uu noqon doonaa mid suuqa saliidda ee caalamka dalka ugu badan soo saarista saliidda qaaradda Afrika ka tuura muddo sanado aad u fara badan. Wuxuu yiri waan ognahay qaraxii waxa ku dhintay ku dhawaad 100 ama in ka badan 160 qof oo shacab Carbeed sidoo kale kumanaan kun oo qof ba ku dhaawacmay. Wuxuu yiri waxa kusoo socda Liibiya ayaa ka daran. Arrintan ayaa waxa jira ayaa leeyahay dalal si gaar ah uga shaqeysanaya isla markaana doonaya inay suuqyada iyo dekedaha waaweyn ee dalalka kale ay burburiyaan isla markaana ay cagta saaraan haddii ay waayaan inay iyagu maamulaan ay qarax xoogan u geystaan. Dekeda magaalada Beirut oo ka mid ah dekedaha ugu shidan ama ugu dhaqdhaqaaqa roon ayaa haatan u muuqata mid gabi ahaanba burburtay. Haatan waxa la sheegay in dib u dhiskeedu uu muddo aad u dheer qaadanayo. Mustafa Sanaala wuxuu sidoo kale ugu baaqay dunida in wax laga qabto ka hor inta aan Liibiya aan loo dawarin ayuu. Liibiya waxay lumisay bilyan dollar laakiin waxay lumin doontaa trillion dollar haddii la burburiyo ama la qarxiyo laamaha iyo hay'adaha iyo kaabayaasha saliidda waxayna dib u dhiskeedu qaadan doontaa sanado aad u badan. Taasina waxay suuqeena ga riixi kartaa ayuu muddo aad u dheer. Haddaba daawadayaasha qiimaha leh iyo dadka Soomaaliyeed taxadarka loo baahan yahay maanta waxa weeye kaabayaashii dhaqaalaha ee adduunka ayaa loo soo dhigtay dagaalkii midba ku taagga ee dalalka caalamka oo dhan ayaa waxa uu u muuqda qolo walba in ay waxay kharbadi karto kharbadayso ayadoo adduunkuna halis aad u badan uu ku jiro. aad bayna uga hadalay arrimaha dhinaca weerarada dhinaca internetka imaan kara iyo weeraradaas sida kiimikadan la isku weerari karo oo aad moodo in kiimikooyinkii caadiga ah adduunka u kala goshgooshay hadda taqraxan loo adeegsan karo. Tusaale ahaan kiimikadan oo kale ammonium nitrate ee loo adeegsaday dalkaasi Lebanon waa mid meel walba la geey karo iyadoo laga dhigayo shixnad loogu talagalay in ay tahay arrimo dhinaca ganacsiga waayo shixnadan markii hore waxay ka timid dalka Mozambique sida la leeyahay oo dalkaasi Lebanon saasa lagu keenay waxaana loogu talagalay in beeraha waxa looga faa'iideysto balse markii dambe si kale la isla rogay waxaana muuqata in wixii ka dhacay Muqdisho October 2017 iyo tan hadeerta ka dhacday Beirut labadu ay yihiin far shaxan ay dalal shisheeye iyo dad shisheeye ka soo shaqeeyeen una muuqata mid halis badan wararka wacala dhinaca dunaasiyada daawashana qiimaha leh aan ku sii qoysla markaana aan sii waday dagaal culus iyo isku horimaad military ayaa isagana laga soo sheegaya afaafka xuduudda magaalada hareereysan ee Gaza iyo xuduudda Israa'iil la leedahay. Warar ay u sheegaya afayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in tashriirad la hubiyay ciidankooda halkaas joogay. Afayeenka qaybta Carabiga u qaabilsan ciidanka Israa'iil ayaa waxa uu bartay ninka la AFJ Adri waxa uu bartay Twitter ku qoray in goor hore oo fiidkii xalay ahayd weerarku dhacay isagoo sheegay in ay u muuqatay in ciidamada Gaza ay weerarka soo qaadeen. Gorsii horeysay ayaa ciidanka magaalada Gaza difaaca ay sheegeen in ay sii wadi doonaan iska caabinta kadib markii dhawaan duqeyn xagga cirka Israa'iil ka geystay gudaha Gaza. Magaalada Gaza ayaa muddo 15 sanadood ku dhawaada albaabada u xiran yihiin waxaana loo yaqaan xabsiga dusha ka furan taasoo ay dhinacna ka qabireen Israa'iil halka qaybta kalena ay ka qabirtay dawladda dalkaasi Masar. halka nagala socotaan daawadayaal wararka wacala dhinaca dunaasiyada caalamka oo dhan qodobo warbixino waaweyn ayaa idin hayaa daawashana qiimaha leh ee dalka la yiraahdo Mauritania golihiisii wasiirada ayaa isbedel xoogan lagu sameeyay kadib markii madaxweynaha laga diiday golo wasiir ah oo la sheegay in ay kamid ahaayeen xubno hore loogu eedeeyay in ay ka qayb ahaayeen dhaqdhaqaaq xatooyo iyo waliba in saliidda dalka ay ku lug lahaayeen oo qaabhan ama musuqmaasuq ahaan ay qayb ka ahaayeen. Madaxweynaha dalkaasi ayaa la noqday golihiisa wasiirada sidoo kale wuxuu bedelay ra'iisul wasaare wuxuuna sheegay in uu sida ugu rasaha badan uu doonayay in dawladdan cusub ay u shaqeyso isagoo ka hadlayay magaalada caasimadda Nouakchott ayuu madaxweyne Mohamed Walad Sheikh Al-Quzani waxa uu u sheegay warfideenada in ay tani muhiim u tahay in dawladda iyo shacabku isku xidhnaadaan. Madaxweynaha hore ee dalkaasi ninkii loo jiray Mohamed Walad Abdulcasiis ayaa lagu xamanayay in dawladdiisu ay qayb ka ahayd fadeexado baahsan oo saliidda dalkaasi lagu dhacay iyadoo la sheegay inuu uga faa'iideeyay dad shakhsiyaad ah. 3 wasiir oo hore ayaa kamid ahaa wasiirada shaqada laga ceyriyay oo laatan ama shaqada loo diiday kuwaas oo la sheegay in markii dambe uu dib u soo magacaabay maadaama madaxweynahan hadeerto iyo madaxweynihii hore ay isku mabaadi ka ahaayeen arrimaha qaarkood ama isku xisbi ahaayeen. hagaag daawashana qiimaha leh shirkii dalka Lebanon laga hadlayay waxtarkiisa iyo waliba in dhaqaale loogu ururiyana uu soo idlaado laakiin waxa la sheegay in shirka lacag lagu ururiyay balse dawladda Faransiiska madaxweynaheeda Emmanuel Macron oo shirka gudoominayay ayaa diiday in uu tafaasiil ka bixiyo lacagtu intay tahay waxaana warmurtiyeedka shirka laga soo saaray lagu sheegay in lacagta aan loo dhiibi doonin dawladda dalka Lebanon ayaa u muuqata in la dayriyay oo dadkeeduna uu dayriyay sidoo kalena ay dunidu dayrisay waxaana la yiri lacagta waxa toos loo sii doonaa
dadka shacabka Lubnaan waxaas la yaaba lacagta haddaan dawladda la sii marinaynin halkee la sii marinaya dadka qaarkood waxay leeyihiin ururo iyo NGO-yo ayaa lacagta la sii mari doona taasaana noqon doonta mid dadka lagu qoodiyo maadaama dalka Lubnaan dhaqaalihiisa uu burburay shirka ayaa warmartiyeedka laga soo saaray sidoo kale waxaa lagu qeexay inay muhiim tahay in isla xisaabtan buuxda ay dawladda soo la timaado ama meesha dhaafto kumanaan kun oo banaanbaxayaal ayaa weli kasii socda magaalada caasimadda Beirut kuwaasoo dalbanaya in dawladdu shaqada ka tagto sidoo kalena wasiirka arrimaha dibadda dalka Sacuudi Arabia oo halkaas ka jeediyay hadal ayaa waxa uu sheegay in dalka ilaa iyo inta laga saarayo kooxo kamid ah Xisbullah aysan hagaagi doonin wuxuuna ka digay in dawladda dalka Sacuudi Arabia ay u aragto wuxuu ku sifeeyay isballaarinta kooxda Xisbullah iyo qalabka militariga urursanayaan mid muujinaysa sid ay u weeqaan ayuu awoodda daleed iyo tan ayuu yiri xasilooni gobolka oo dhan iyo gaar ahaan dalkaasi Amir Faisal bin Farhan waxa uu sheegay inay muhiimadda koobaad siinayaan inay sii wadaan in dawladda dalkaasi Lubnaan laga taageero sidii meesha looga saari lahaa Xisbullah wuxuuna yiri walaaca wali uu sii socda waayo kooxdu waxay gobolka ka wadaa ayuu burbur iyo kharbadaad iyo handadaad aad u foolxun ayuu Farxaan wuxuu sheegay in dawladdiisu ay shacabka walaalahooda ay taageeri lahayd laakiin wuxuu ka digay ilaa iyo inta kooxo wax kharbada oo ay kamid tahay Xisbullah ay meesha ku naban tahay ee aad ka doonto ayuu yiri in wax ka qabtaan arrimahaas hagaag daawashana qiimaha leh wararka wacala dhinaca daraasada qaybta 2 daqiiqadeed